koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi warnimayow bini'aadamka allah karaameeyey muslimkaana sii karaamo badan laakiin falalka dhacaya markaan fiirsho soomaalida bini'aadamka karaamada leh kuma jiraan iyagaas ka qaaday karaamadii wariya karaamiyan iyo kala dheer madaasan dad karaamo leh waa walaagi gaalka ayaka dhiis suubiye ilaahay basiinka dhaariyey aryaadhaha dad karaamo leh horta ma sameeyaan gabar masaakiin hoos saqiira inay inya qufsadaan oo faraxumeeyaan oo dilaan weliba jawaan ku soo ridaana iyadoo jarjaran ay soo hordhigaan gurigii reerkeera gefkii ka dhacay gaalkacayo rageystay waa ka guubaha gefkii ka dhacay gaalkacayo rageystay waa ka guubaha horta cabdillow inta damiirta laha ka gubanaysa ummadna ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu isdooriyaan waxaa kaloo la yidhi ilaahay ha ku doorsho dad baa mooda habaar ducana waa noqotaa marka kuwa falkaa geystay waa doorsan yihiin shayddaan baana doorshay lagana dawoobi maayo inta bulshadu u midoobayso falalka xuxun dadka samaynaya war horta waxaa la yidhi gabadha 7 nin baa farax xumaysay marka waxaan la yaabanahay 7 ninoo isku raacday gabadhaas yar aan afduubanno kadib aan farax xumayno kadib aan jirdilno kadib aan nafta ka goyno indhaha ka bixinno kadib inta jawaan ku ridno aan jarjarno gurigeeda hor dhigno xasbunallahu wa ni'mal wakiil warnimayo waxaa la yidhi dalka Kenya xaafadda Islii gabar yar oo Soomaali oo iyadana sida la yeelay ayaa taala gaalkacyo laftigeedana gabar kale la leeyahay la yiri salana waa ogeedeen gabdhihi ayagoo jidka xaqaya la xasuuqay marka dumarkii waxay leeyihiin ragii waa waashay maxaa tala war waxa falka sameynaya rag maahana waa dugaage odayaasha gaalkacyood waxay yiraahdeen maanta kadib ninkii gabar kufsada qabiil loogama xaajo karo waa in shariicada islaamka la horgeeyaa la mariyo lana toogtaa warnimayo gabya Iraaqiya hadda koor markuu arkay dadkiisii sidii la raba laga yeelayo wuxuu yiri maanta waxa aab ugu filan inaan ahay Iraaqi marka Soomaaliintii wax garata maanta waxa aab ugu filan inuu Soomaali yahay war waxa la yiri dulmigu aadanaha waa dabraa waana dumiyaa dawadeedna waa dooriyaa dulkii laasima waxa la yiri dad yahow xumaha aad daawataan dunuubtan laga hortagin dib baad uga qoomamay dulmiga biiraadad yahow qumbula duri oo naqda waxa kale la yiri dad ilaahay caasiyay dubbihi ku dhici lahaa wuu ina dul yaalaa warnimiyow daaleeyay dhagansada dadar maylika fadaylaanki dubishay la goori darbigaas gaasiye ka aragay madila doohay ana dariishada ka fiiriyay dilowjay dangmaneen anti dareen lahow kaha arsidaan ma isdhaantino sidaan tala ma ayne war waa ognahayo dulmigu uu weyn laga gali waa sagaar laanta war qandaraaska sagaarada qadar baa qaadatay ayuu ku eedaya war madaxweynaha Soomaaliya way wax qadar aad shalana Masar ka yimid daraadna Djibouti iyo Bujumbura ka yimid tii ka horeysana Addis Ababa ka yimid waagi Xasan Sheekhna madaxweynuhu wuxuu dhihi jiray safar iyo diyaarad raac badan ninkan jid xiran badana bulshada maxaa loo xanibaya aryaadaha madaxweynuhu orod badan ama siib laqaad sida حتى كورا لانكو هسا ما يري انت سروري حقا سروري اوديغان مها ابتيلا دا سي مها اهد اوديغان نيتو اديس لي ما امنو اوديغان لي اديس لي ما امنو اوديغان لي ريركيز ما امنو ورانو هيس كان مغلي جري سي هاغوغاني سو هاغوغاني هروم مرنسيدي هاول كما هارين هبارنا او دير madaxweyne orod badan inta u socda dunida waa la aadaya hadeedan noo gashay maxaa dood uga qabtiin daraad ma sheentihe war nin Cabdi Aziz la yiraahdo waxa uu yiri cirifka magaalada adoo jooga hadii musqusha inta ka buuxsanta boosneerka qodo aad maagto askari ku ag taagan aad arkay cirifka kale ee magaalada adoo jooga hadii hal jingad aad guriga
guri saara maagtana askari ku ag taaganaad arkee cid u soo sheegtayna ma taqaanid marka waxaan la yaabanahay dadka saldhigga agtiisa lagu dilaayo sababtay ciidanku u arki waayeen waray dadkan dheeftu waa u xisaabsan tahay laakiin dhib iyo dhiig uma xisaabsana war nin askari ah waxaa la yidhi askari qarnaatee naga hor leexe askari qarmaahii calooshiisu shaqaysta ahay uu yidhi runtiisu howaal meel biyaali hunguri jeeya leere anu waa yaabana ana oo badda halkoo malaa oo weyn ka soo baxsado madax soo saarti oo wasiirka maaliyadda beelay war imaadi markaas macsadhay makaseesi idinka malaaga aad soo beys canshuurtiis waa lagaa rabaa mar lamaad macsadleeya mataqaani idinka inta jeesa kulaan sawiraan kula gala ma shaqada horta ii saaran markooy anna 100 kiilo culeyskasa madax ii saaran horta beela guri weyn oo hargeysa ka dhisaa haalayo muga canshuurtan masaakiinta laga qaadaa laga dhisaa mase meel kale wax ka soo galeen odaga war maanta waxaa la yidhi diyaaradaha indiya waxay duqeeyeen baakistaan marka baakistaan indiya kama adkayne maalqaaciddaa u jabisay wariya annagaba kenya nagama adkaya shabaabaa noo jebiyey aryaadaha ununkuba gabdhaha ma qufsa jirina sharci la'aantaa noo geysa hindaa anna baxamar ma joogi lahaanin marka jiddan umar an waayi yaa arro aniga baxamar ma joogi lahaan duurkaya iskaaga laabalaha shabaqay ii garuunkayaan galabka saarala ee shabaabaa ii diiday warlanko atu ka horma eray inni janoofedkani tabaroo ii diidi ana naftay beera isku falada lahay shabaaba orooga warnimada hadda ka hor odaya waxaa laga soo sheegay naar ma galeena geeriyahay u dhuglaysay warnimayo mucaaradkii muxaafidkuba waxay facebookga wareejinayaan labadii odayaa isku dhacay ee maruna mase waa been horta weji buug warkiisu qabasho ma leh laakiin waxaan la yaabanahay rag waaweyn oo madaxa warka qoraya wallee ka jire walaagii la sheega wallee ka jire wallee ka jire war waxaan la yaabanahay cabdishakuur oo ahaa ragga madaxweynaha ku dhowdhow iyo mahad salaad oo ahaa ragga mucaaradka ku dhowdhow hadda labadii oday qoraalada ku kala taageerayaan war heedhe khilaaf iyo been iyo waraad jeceshihiine waxaan anigu idin leeyahay waxay daawo dhalataa daacadii wax qabataa daandaansi iyo kibir dayaxoodu dhacayaa duulaan la qaadiyo dakanadu idlaataa damac la xakameeyaa dulmi laga adkaadaa dulli laga xoroobaa nabad loo diyaar yahay dadku wada ilaashado marka door la siiyo sharta laga duraantee allow daacad adeegta daacad weligaana madiidna rabbiyow daacad adeegda allow dulmiga naga suuli waryaada shirka amnigoo la sheegaya maxaa ka soo baxay war saas maahana waa la daba jawaay ku dhahana been ha ka sheegin war waa la baarayaya ereenna inka been sheegteen dadka waryaa falalka imaandarada way cambaareeyeen dilalkii ugu dambeeyey bay ka taxsiyeeyeen waryaa taliyaha boolisku wuxuu yidhi tillaabaan ka qaadayna war aniga wasiirka canshuur iga tagaani dhawriya war taliyaha booliska buruufta dhexdeeda tallaabo u qaadaa miya waryaadaha madaxweynaha fahdaa qadar uga horreeyo amniga sugaaya ma la qaraabtay taga meel madow ka baxe